Apple iPhone ayaa 10 jirsatay toddobaadkan. Shirkaddan waxay iibisay in ka badan 1 milyan oo iPhone ah ilaa iyo markii ay bilowday bishii Juun ee sanadkii 2007. Kadib bilow aan caga fiican ku taagnayn, iPhone wuxuu hadda keenay inta badan faa'iidada shirkadda iyadoo laga faa'iiday 24.3 bilyan oo dollar sanadkii la soo dhaafay. Taageerayaasha iyo kuwa maalgashtay waxay sugayaan iPhone 8 oo sanadkan dhammaadkiisa la filayo. koox ka tirsan macadka farsamada Massachusetts ayaa sameeyay diyaaradaha droniska oo duulaya haddana dhulka ku socon kara oo guud ahaan aad u wanaagsan. mararka qaar intii ay waddada ku xayirmi lahaayeen waa ay duulayaan si ay waqti kugu badbaadiyaan. marka aan duulis loo baahnayna waxa ay badbaadinayaan batariga. maalin ayay noqon doonaan bilowga baabuurta duusha. haddaba ma gaari garbar lagu xirayba mise dronis luga loo yeelay? tii ay noqotaba waa fakar saynis. iyadoo diradda la saarayo suuqa baabuurta oo u wareegaya kuwa iswada ayaa tartanka waxa uu hadda yahay samaynta shukaan digital ah oo gacan ka geysata baabuur madax bannaan. shirkadda Feston oo fadhigeedu yahay magaalada Detroit ayaa samaysay hab kombuyuutar ah kaasi oo meel fog looga hagayo baabuurka. shirkad cilmi baaris oo Maraykan ahna waxa ay ku qiyaasaysaa suuqa farsamada ee sanadka 2022 inuu laabmayo oo gaarayo 62 bilyan. hay'adda sirdoonka ee Israa'iil ee Mossad ayaa furtay sanduuq ay ugu yartay xorayn si sare loogu qaado awoodaheeda ururinta sirta. Mossad ayaa ku bixinaysa $570,000 oo dollar fakradaha cusub oo ku saabsan qaybo kala duwan ay ku jiraan robotka farsamooyinka cusub iyo qarinta xogta. taasi waxa ay tahay in ay aad u fududaato oo ay sax noqoto helista kuwa laga shakiyo sida aad ku arkaysaan muuqaalkan ay hay'adda soo saartay.